بسم الله الرحمن الرحيم وسلامتين ميل aad joogtaanba reer wajeer iyo inta kale oo ama dhageysanaysa ama fiirsanaysa maanta waxaa dhacday in maxkamadda high court la dhahaa oo Kenya saddex maxkamad mid Meru ku yeela mid Nairobi ku yeela iyo mid Garissa saddex maxkamadood in ay u diideen inay amar bixiyeen oo ay diideen impeachmentada ama shaqo ka joojinta governorga ay wataan county assemblyga Wajeer oo ku beegan berrito arrinta waa la jooji orderkii waa la bixi amarkii waa la bixi waxaana la doonayaa amarkaas inay qaataan amarka ay qaadanaan waxa kamid ah waa sida loo jooji ilaa maxkamadda ay dhamaysa keeskaas ay dhamaysa kama hadli karaan iskuma imaadi karaan waxba impeachment ku saabsan ama shaqo ka joojin kama hadli karaan maanta waxaan maqlay saddex ayaga kamid ah ayaa radio community tageen oo dhaheen Wajir FM bay tageen waxay dhaheen berri annaga waa wadanaynaa ha is jireen meeshan dawladda jirta ninkii isku daya in arrintaas soo qaada berri hadee waa markaan waxa waaya gudaha ma la dhigaa qofkaas maxay sharciga aan ma qorin sharciga Kenya u yeelo way nin kasta waa inaad u hogaansanaada sharciga Kenya ilaa keeskaas uu ka dhamaadana wax impeachment oo laga hadli karo ma laha annaga diyaar aan u ahnay nimankan iyo haweenka MCS-ka diyaar baan u ahnay inaan la hadalno laakiin waxay u eg tahay dadka saa dhahayo oo maaragtay kuwa qaarkood sharciga way garanayaan waxa waaye dadkii ay Nairobi amarka siinaya kulleeyba ay rabaan inay xoogo ay ka faraxsiiyaan laakiin taasayto ma dhici doonto sharci baa jira halis jira mid kale reer Wajeer waxaan leeyahay sharciga gacanta ha ku qaadan laakiin ninkii sharciga jibina oo la arkay hadee markaan anaga wax kale oo leenahay ma laha sharciga ninkii jibi waxa waaye the law will take its course marka saas inaad ogaatiin aan rabnaa sababta marka loo jooji baashan waxa waaye impeachment loo jooji waxa waaye sharciga u degan oo impeachment markii la suubinayo qaynuun baa jira qaynuunka lama raacay full stop waa intaas kale qaynuunka hadaan la raacay de waxa xirjajaba bay iska heed marka xirjajabna lagu ma dhaqa Kenya qaynuun bay qabtaa qaynuunkii baa la jibi marka diyaar ha u noqdeen lawyer-kooda ha la imaadeena aan isku imaadna Nairobi iyo Meru iyo Garissa isku imaadna taasna waa shay taariikh wiligeed ma arkin saddex kood oo kala meel ah oo hal dharaara arrinta kaliya order isla bixis lama arkin tayda ugu horeysa taas waxay tusaysaa reer Wajeer inay iga dambeeyaan sababtaas oo leeyahay waxa waaye mid Nairobi aniga file gareystay laakiin Garissa reer Wajeer oo Garissa joogana file gareey mid kale oo Meru dad kala oo reer Wajeer oo Meru jooga ayaa kootiina tagay ana hata duruur ma bixin lacag lima weydiin lawyer-kii wax walba ayaga iska bixi marka taas lama arkin nin gabadha wasaas noqday ma jirin hadaan ka hor marka waxa waaye this is a total man santeena meel sidii kara xilka qaadista ama mooshinka laga gudbiyay gadaal baa laga riixayaa waan ogaanay arrimaha waxyaalo badan aan haynaa meeshan kuma sheegayna laakiin waxa waaye arrimaha qaarkood waa la soo record garay ilaa meel walba meeshii tagaanba waa laga record gareynay wixii ay sheegayaan kulli waa logsoon taas waa xaqiiqo ninkii beentay inaana bariha ha beentay asaga hayso soo saar waa dad meeshan ku dhuumana Nairobi wirba Wajeer ha imaadeen waa mahadsantiin khayr Allah